gargaaru faashado gadafooyin dhacayo waayaha gardaadsho waqtiga gunaanaday. bismillahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddaawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkan oo ku saabsan taariikhda jamhuuriyadda somalilan. barnaamijkan oo si ballaadhan u iftiiminaya taariikhda faca weyn ee dowladda jamhuuriyadda somalilan, islamarkaana si qoto dheer u iftiiminaya qarannimada jamhuuriyadda somalilan. waxaa barnaamijkan maskaxdooda iyo aqoontooda iyo fikirkooda ku soo diyaariyey ururka xoojinta qarannimada jamhuuriyadda somalilan, oo ah urur ay ku dhan yihiin inta ku abtirsata jiritaanka qarannimada somalilan, waana inta jecel horumarka. ururkan xoojinta qarannimada somalilan, dadka ururka ku jira waxay kala joogaan daafaha dunida ee caalamka oo dhan. barnaamijkan waxa aanu ku eegi doonaa hadallada inta badan siyaasiyiinta ee ay kaga hadlayaan dowladda jamhuuriyadda somalilan iyo soomaaliya. waxaynanu eegi doonaa hadalladii dhex maray xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaridka. haddaba daawade fiiro gaar ah. marka hore, somalilan waddan soomaaliya kamay mid noqon weligeed, iminkana ka mid maaha. waana ceeb iyo dembi mid mucaarid ah iyo mid muxaafidaba in la aqbalo arrimaha noocaasi ama hadallada noocaasi oo kale a. lagumana qasbi karo shacbiga somalilan waxaanay geeyin. haddaba aynu eegno hadalladii dhex maray siyaasiyiinta somalilan. hadalladii waxaa bilaabay ama coriyey bartiisa facebookana soo dhigay guddoomiyaha hore ee xusbiga mucaaridka ah ee waddani oo ah musharaxa madaxweyne ee xusbiga mucaaridka ah ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro. qoraalkaasi uu wakhtigaasi guddoomiyuhu bartiisa facebooka uu ku soo qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa dib u heshiisiin dhex marta somalilan iyo soomaaliya, waannu taageersannahay. xukuumadda somalilan ayaa arrintaasi ka jawaabtay. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan mudane salebaan yuusuf cali koore ayaa jawaab ka bixiyey hadal ka soo yeedhay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani. warkani ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan ayaa u dhignaa sidan: waxa ayaan daraa in guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro uu u badheedhay inuu xaqiro qarannimada jamhuuriyadda somalilan kadib markii wadahadallada somalilan iyo soomaaliya uu ku tilmaamay kuwo dib u heshiisiineed, taasi oo fajiciso ku noqotay shacab iyo xukuumadba, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkani. guddoomiyaha xisbiga waddani waxa uu bartiisa facebook ku daabacay kulan uu la yeeshay shalay saraakiil dowladda norway u qaabilsan wadahadalka somalilan iyo soomaaliya, waxaana uu guddoomiye cire mas-uulka ku tilmaamay inay u qaabilsan tahay wadahadallada iyo dib u heshiisiinta somalilan iyo soomaaliya tan iyo markii wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ay bilaabmeen sanadkii 2012. marna laguma sheegin wadahadal dib u heshiisiineed, hase haatee ujeeddada jamhuuriyadda somalilan waxay ahayd, welina ay tahay, in wadahadalkaasi uu yahay sidii ay u kala guran lahaayeen somalilan iyo soomaaliya. hadalka guddoomiye cire waa khiyaamo qaran iyo jariimaduu ka galay dowladnimada 30 jirsatay ee jamhuuriyadda somalilan ku naaloonayso. manaaha baa lagu yidhi markii ugu horreysay ee uu ku caanbaxay inaanu xusaska 18 May oo ah maalinta qarannimada somalilan aanu weligii ka qaybgelin xusaska munaasabadahaasi. markii uu ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada ahaa iyo iminku uu yahay guddoomiyaha xisbiga waddani ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkani. hadalkaasina waxa uu daliil u yahay tuhunno hore oo shacbigu ay ka qabeen inuu xidhiidh iyo gacansaar hoose la leeyahay soomaaliya, taasi oo ay sheegeen xubno ka tirsan xisbiga waddani oo uu ugu dambeeyey cabdilaahi daamur. geesta kale waxaa iyaguna arrintaasi ka jawaabay xusbiga mucaaridka ah ee ucid, islamarkaana sheegay inaanay iyagu garanayn waxa uu xusbigaasi arrintaasi ula jeedo. xisbiga waddani dee halka uu ka keenay dib heshiisiin iyo arrimaha isaga sheegay. gabadha safiiradda ahi kuma jirto shaqadeedu dib heshiisiin iyo waxaas. xisbiga waddani isaga sheegay meeshuu ka keenay dib heshiisiin somalilan iyo soomaaliya. shaqadeedana maaha. haddaan xisbi ahaan waanu la kulannay annaguna hogaaminayay xoghayaha iyagu
iyo garabada iyadaha xogeyaashuba iyo xogeyaha guudba wakiilka waxaan la kulanay safiirka Soomaaliya iyo Somaliland u qaabilsan dalka Norway oo aan kula kulanay hotel ambassador annagu kalamaana hadlin wax khuseeya dibheshiisiin iyo waxaas shaqadayadana maaha waa dadka Soomaaliya dowladda Soomaaliya had iyo jeer dibheshiisiinta ka dhigata issue maaha annagu waxa weeye wadanka waa kala tagnay oo Soomaaliya iyo Somaliland laba wadan oo kala gaara kama hadal had iyo jeer dibheshiisiinta maqasho dad sayo dib loo heshiisiinayo shaqadeedana maaha shuqul kuma lihi annagu waxaan kala hadalay issueska doorashooyinka iyo waxyaabahaas haddii aan sheego title-ka waxa weeye safiirka Somaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan oo special envoy wax kale maaha dibheshiisiin iyo waxa shuqul kuma leeyahay shaqadeedana maaha ereygan dibheshiisiintu waa erey isticmaasho Soomaaliya isticmaasho dibheshiisiin iyadoo ku qarinaysa ama dafirsan Somaliland marka waxa weeye anagu shaqadeeda maaha Somaliland in aan isticmaalo dibheshiisiin ereygaasuna waa erey ay Soomaaliya had iyo goor ku soo celiso dibheshiisiin Somaliland waxay leedahay dalka go'ay baan dalkan saas kala duwan yihiin nasiib darrese waxa ay dhacday in dadku ay u fahmaan hadalka guddoomiyaha xusbiga wadani ee wakhtigaasi inuu qoraalkiisu ahaa mid xambaarsan dib u heshiisiin Somaliland iyo Soomaaliya mar kale dhex marta waxaa taasi sii qeexay oo ka hadlay islamarkaana faahfaahiyey xoghayaha xusbiga mucaaridka ee wadani kaasi oo difaacay guddoomiyaha hore ee xusbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro weeyaane waana musharaxa madaxweyne ee xilligan ee wadaniye waxaanu xogayaha xusbiga wadani ka difaacay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi hadallada kaga yimid xusbiga ucid iyo xukuumadda waxa wadankeena timi oo soo booqatay gabadh ah Norwegian oo ah ergey khaas ah oo maxaan ku raahdaa ergey khaaska ah ee Norway ee Soomaaliya gabadhaasi waxa ay ka tirsan tahay qaybta nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta ee maxaan ku raahdaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway title-ka in la sheega ceeb maaha dambina maaha waa run iyo xaqiiqa ay tahay in la noolaano guul darooyinkeena siyaasadda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland ee qorshe la'aanta ah ee indha la'aanta ah ee ay suurtagal tahay 6 bilood in wasaaradda arrimaha dibaddu ay bilaa wasiir ahayd qorshayaasha sidaas ah ee qarankan dhabarjabka ku ah kuma qarin karno in aynu maxaan ku raahdaa title beena aynu inagu u sameeyno dadkayno imanaya oo aynu raahno waxa weeyaan ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya iyo Somaliland maaha waa ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya run weeye waan ku celinayaa waa ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya runtu taa weeye waa inaynu aqbalo waa inaynu raahno sidee baynu u helaa ergeyga gaarka ah ee Somaliland hadda tahay wasiir qarankan wasiiru ah aad fahamsantood garanaysa macnaha inaad qaran dhan iyo ummadan aad wasiir aad u noqoto macluumaadka aad dadka u sheegayso runnimadiisa iyo xaqiiqanimadiisa inaad hubisaa waa waajib ku saaran waxyaabaha wasiirku yimid ee yiri aadka loogu qoslo waxa kamid ah wuxuu yiri Cabdiraxmaan Ciro weligii hadda waa weligii muu tagin xaflad 18 May marumba mise waa been anigu waa been oran maayo wasiirka been baad sheegaysaa oran maayo laakiin tiisa waan ka xishoonaynaa araga idhaahdo laakiin tiisa warkaasi xaqiiqo maaha mana jiro waana wax cid waliba ay hubin karto waxaan isweydiiyay wasiirku markuu warqada qorayay qof baa soo garaacay oo soo daabacay qof baa la akhriyay wasaaradda maaliyad baa gasho intaasoo qof baa ka tirsan qof saxa wasiirka ku dhaahdo wasiir warkani dhab ma aha senteniskan ka reeb wasaaradda miya laga waayay mise waxa abuurmay dhaqanka aynu ognahay maanta dawladda Muuse ka dhex jira ee aanu qofna qof runta u sheegi karin ee aanu qofna qof ku oran karin waad qaldan tahay sida aanu wasiirku madaxweynaha ugu oran karin madaxweyne waxaas waa qalad ka daa ayaa abuurantay miya wasiirkana inta la shaqeysa ee ka hooseysa inaanay oran karin wasiir arintaas waa qalad oo ma jirto ee ka daa waana inagu soo noqonaysaa oo ceebteedu inaga ayay inagu soo noqonaysaa waxaan doonayaa wasiirka inaan u sheego
cabdiraxmaan waxa uu matalaa wax ka badan 41% shacbiga reer Soomaaliland waa nin reer Soomaaliland ah muwaadina wadankan inuu madaxweynenimo ka doonaya insha Allah next year wadankan madaxweyne ka noqon doona waa nin 12 sano wakiilada soo hogaaminayay marka wasiir loo yahay amaba cid kale oo loo yahay inay gunno iyo xil Soomaalilandnimadoodu ay ku fadhido oo maalinta gunnada ay xilkaasi ay goodo ay oranayaan markii horeba kuma aanan qanacsanayn inay cabdiraxmaan yiraahdaan waa Soomaali weyn waxaan isleeyahay qarankana way caayaan iyaguna waxa weeyaan dalow ayay iska tuurayaan madaxweyne maanta mar kale waxaynu soconaa doorasho 2022 hadii Ilaahay raahdo insha Allah ma waxa aad doonaysaa inaad doorashada ku gasho dhiriqdii iyo kala qaybintii iyo dagaalkii aad 2017 ku gashay waayo hadalka wasiirku yiri ma aragno hadal la iska yiri waxaanu aragnaa bilowgii qorshaha campaign-ka 2022 iyo dhaqankii dawladnimada madaxweyne Muuse lagu bartay marka la eego hadallada u dhaxeeya in Soomaaliya wada hadal lala yeelanayo iyo in kale iyo in aynu ka mid ahayn Soomaaliya waxa habboon in la fahmo asalka magaca iyo bixiyay halkee la yiraahdaa ama la oran jiray ama Soomaaliba magacaasi ma Soomaaliba mise waa afqalaad ma waxa jira wadan Soomaaliya la yiraahdo mise waa been fakatay markaynu taa cadayno ayaynu wax ka oran karnaa arrimahaasi ama la fahmo marka hore Somaliland kamay mid ahayn Soomaaliya waxaanu habboon in aad loo fahmo in badan waxay siyaasiyiintu jamhuuriyadda Somaliland ay cadeeyeen taariikhda cad ee ay leedahay jamhuuriyadda Somaliland ee barakaysani taariikhda faca weyn ee jamhuuriyadda Somaliland siyaasiyiinta Somaliland intii dhimatay iyo intii nooli waqtiyo badan waxa ay dul istaageen sidii loo cadeyn lahaa taariikhda Somaliland rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye maxamed xaaji ibraahim cigaal oo waqtigaasi si cad u sharaxaya mar ay warbaahinta caalamku ay wax ka weydiisay waalaantii afka Soomaaliga ee BBC-da 1960kii aynu dhageysano allah u naxariistay marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal oo arrintaasi iftiiminaya waxay tahay in la wada maqlay maanta maxay ahayd colonel secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu u dhacay inaa kulligii ka wada dharagsantihiin baan malaynayaa maalintii isniintii ayaanu hadalkii istaad markaa waxaan umaya dowladda ingiriisna awalba usii go-nayd waxa ay doonayaan inayna yidhaahaan hase ahaatee inbaa meesha ku jirtay waxaa la hubinayay waxaan la doonayo ee dowladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay gelayso inay tahay in kala la hubsanayay dabta labadii casho horaan saragnayba baadniinun arrinku la baarayay dadka meesha joogay iyo dadku sidoo wax doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay in la baarayay bixi dabtana markii taas cadaatay maalintii arbacadii galinkii dambe shalayto ayuu noo yimi colonel secretary magaalo dabtana khudbadda ninka la sheegay ayuu akhriyay hadalkii waxa weeye guntiisii bisha 1 July 1 inaynu dawlad ahaano si aynu walaaladeen Soomaaliya isu raaci karro ayuu guntiis noqday marka maanta wada dheer oo aynu soo maray ayaynu maanta maxay ahayd joognaa madaxeedii asaatee midkii ka dheer kana adag ayaa imika aynu gelaynaa dawladnimo loo qayliyaa dawladnimada doonayna la yiraahdaa waa suura gashaa maanta deynaba soo qaylinay helay dawladnimadiina asaatee ka adag wuxuu yaariga ka sii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay helay dawladnimadii jawaabtu waxa weeyaan intii u dhaxaysay 26 Juun ilaa 1 July 1960kii waxaa jiray wadan xor ah oo la yiraahdo State of Somaliland muddadaasi yar Soomaaliya waxa ay ahayd wisaayad UN Talyaanigu u dhiibtay 1 July ayaa waxaa loo rumaysan yahay oo marag madoona oo ay duniduna markhaati ka ahayd in State of Somaliland iyo Soomaaliya maalintaasi ay xorowday sida runta saacadda ama waqtiga labadii baarlamaan ee shacabku
ay ku midoobeen ee la doortay madaxweynihii ku-meel gaadhka ahaa allaha u naxariistee aadan cabdalle cismaan waxa uu ku sheegay dowladda cusub mar waddanka jamhuuriyadda somalilan hase yeeshee mar dambe laysku raacay in loo bixiyo jamhuuriyadda soomaaliyeed taasi waa taariikh cad oo laga duubay madaxweynihii ugu horreeyey ee jamhuuriyaddii somalilan iyo soomaaliya aynu eegno waxaad xasuusantihiin in aynu isku raacnay halkan laga baasgareeyey xaggaasna laga baasgareeyey in maanta intii ka bilaabata waddanka Soomaaliya iyo Somaliland mid ay isku yihiin يا دقيقة كل شيء يا استاجتين الصعبسكا وحنو قادنا يا سيدي أنو لجديد ويا هايد إن دقيقة داس أنو ضحدة أنو صوت عفني أسمبليغا يا عضوذا أعضاء ماشي تنفرددا إن يهين أعضاء أسمبليغا عامكا أو وطنيغا أو جمهورية صوماليا haddaynu u soo noqonno waxa uu yahay magaca soomaalida dadka qaar waxa ay u haystaan inuu yahay af soomaali laakiin ma aha ee waa laatiin waxa uu ka kooban yahay soomaal iyo ia marka laysku daro waxay noqonayaan dhulkii soomaalida saddexdii dowladood ee reer yurub ee iyagu soo kala maamuli jiray waddamada soomaalida oo kala ahaa waddanka ingiriiska talyaaniga iyo faransiisku waxay saddexdaa waddan ee reer yurub ay ugu kala yeedhi jireen ama ay u kala yaqaaneen waddamada soomaalida sidan waddanka faransiisku waxa uu odhan jiray ama uu ugu yeedhi jiray soomaali ingiriisku waxa uu ugu yeedhi jiray somalilan halka talyaaniguna uu odhan jiray soomaali sidaasaanay ay sax ku tahay oo ay taariikhdu ay ku caddaysay waxaa jira dad badan ama siyaasiyiin badan oo ka soo jeeda somalilan oo wakhtiyo badan adeegsada ereyo ama hadallo aan meesha qaban islamarkaana noqonaya qarannimada somalilan dhibaato ku keenaya sidaasi oo ay tahay haddaba ururka xoojinta qarannimada somalilan waxa uu halkan ku caddaynayaa in markii ay burburtay jamhuuriyaddii soomaaliyeed somalilan dib ula soo noqotay waana garar in somalilan dib ula soo noqoto xorriyaddeedii iyo qarannimadeedii jamhuuriyadda somalilan ururka xoojinta qarannimada somalilan oo hadalkooda sii wata ayaa sheegay in markii hore ee laysku darsamayey ama laysku tegayey aanay wax maxkamad ah ama un-tu lagama diiwaan gelin wakhtigaasi waxaa kale oo jiray oo hore loo ictiraafay oo iyagu ahaa dowlad jirta oo caalamku uu wakhtigaasi ictiraafay dowladdii jamhuuriyaddii somalilan waxaana wakhtigan aanu sheegaynaa islamarkaana aanu halkan ku caddaynaynaa inaannu nahay shacbi isku tashaday oo dowladnimadoodii iyo qarannimadoodii dib ula soo noqday islamarkaana madax bannaanidoodii iyo jiritaankooda jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan ay tahay mid lama taabtaana waxaana looga baahan yahay haddaba soomaaliya wakhtigan inay ictiraafto somalilan waayo waxaa la gaadhay wakhtigii dunidoo dhani ay ictiraafi lahayd somalilan waxaanay ururka xoojinta qarannimada somalilan ay sheegeen hadday ina ictiraafayaanna hayna ictiraafeen haddii kalena loo joojin maayo shirkii dhacay 2012 ee ka dhacay london ee kontonka dowladood ay fadhiyeen waxaa halkaasi ku wada saxeexnay in wada hadal uu inoo bilaabmo innaga oo laba dowladood ah somalilan iyo soomaaliya daawadayaal intaasi waxaa inoogu soo gebagaboobay barnaamijkaasi sida cad u qeexayay islamarkaana u soo bandhigay barnaamijkaasi taariikhda jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan barnaamijkan waxaa isku soo dubariday islamarkaana halkan iskugu soo habeeyey ururka xoojinta qarannimada somalilan xagga farsamada iyo habayntu cabdirasaaq cabdilaahi jaamac faarax cadaawi anigoo cumar aw cali axmeda dhammaantayo waxaannu idinkaga tegaynaa barnaamijka mid lamid intaynu dibi u iskugu kulmi doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kala gurasho weeye garo
gaadhu faashado gadafooyin dhacayo waayaha gardaajo waqtiga gunaanaday anna waxaan gudiyayo midkaan soo gudbinayo gooni isu taagani waa go'aan dadweyno gees laga mara jirin taladan gorfeeyo inaan gaadhu faashado gadafooyin dhacayo waayaha gardaajo waqtiga gunaanaday anna waxaan gudiyayo midkaan soo gudbinayo gooni isu taagani waa go'aan dadweyno gees laga mara jirin